السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام أصحابتي إذا ميرول بأدون كانت كجوكتان كسر هذا channel كنا مونا صوم ولا شينا مونا ومالين عصبي روتين كله ما أنت إن شاء الله محربة حب كان عنتظر أن إسكاجة قفيفي وإن أنا إذن لو ذاقو وحبضنا يعني إذن شاقي وأن إذن ده يعني عنتكرين توكلا روتين jadwal ayaa u sameystay oo routine ayaan u haystaa hal mar ayaan jikada aan wada galaa marka maanta waxaan jeclaystay insha Allah inaan muuqaal aan idinkaaga soo duubo hadda laakiin quraac ayaan u fadhinaa markaan quraacanayno waxaan caadi inoo ah inaan sheekooyin aan dhageysano Soomaali inaan ducooyin aan sii akhrisano marka maadaama samarkii uu gabagaba u yahay waxaan routiinadeedii ayaan dib aan u soo celiyay oo mardhow iskuulaadkii ayaa la furayaa waxa waaye in routiinka dib aan u soo celiyo ayaan rabaa labadani week oo ka dhiman marka insha Allah nala socda waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkaad ka heshaan marka maanta waa kan cashadii qadadii ayaan rabaa insha Allah inaan idin la wadaago digaag ayaa soo dhigay cashan waa rabaa qadani waan ka dhigi doonaa halkaas bariis ayaan biyo la soo dhigay halkan canjeero ama laxoox u taqaanaan ayaan soo qasay marka waa kana cashada intaan ayaan rabaa insha Allah inaan ka sameeyo qudaarta ayaan soo diyaarsanayaa waa cunto aad iyo aad u fudud waqti badan aan ka qaadanaynin especially qadada marka waa kana qudaarta wixii dhan waa soo diyaarsaday waan soo jarjartay halkaani digaagii waxaan soo mariyay xawaajiyadii ayaan soo mariyay wax yar saliid ayaan soo qaatay marka inaan shiilo ayaan rabaa digaagii oo xawaajiyadii aan soo mariyay digaaga ayaan dubayaa digaaga saadogtay waqti badan ma qaato aad iyo aad ayuu u jilcan yahay marka waxaan rabaa labada dhinacba maasha Allah inuu kalar qurxan uu ka yeeshto kadib waxa waay sooskii waxaas ayaan sii diyaarinayaa marka digaaga hadaan sameynayo qada ayaan ugu talagalay digaagii cashada waa gooni si kale waan soo yareyn doonaa bariis cad ayaan insha Allah lagu cunayaa bariiskii waan soo dhaqay biyo ayaa la sii dhigay mashiin ayaa ii yaalo 10 daqiiqo ka badan ma qaadanayo biyo iyo cusbo kaliya ayaan ku karin doonaa biyo cad iyo cusbo kaliya ayaan ku karin doonaa marka bariiskii digsiga ayaa ku soo shubay 10 daqiiqo ka badan ma qaadanaya xoogaa ayuu biyo la yaalay haddana digaagii sooska ayaan sameynayaa waa gedgedinayaa sida u jeedin karitaan kale ayaa u sii dhiman marka ma rabi inuu iga sii gubto kalar yar oo qurxan ayaan ka rabaa insha Allah marka cuntadan waxa waaye waa 1 2 3 aad iyo aad u fududahay saa ogtihiin waxbarasho ayaan ku laabanayaa waqti badan ma haleelayo inaan jikada aan taagnaado inaan jikada ii sheeg cunto karin intaas oo saac ay iga qaadato anigana jadwalkayga waxa waaye barqadii markii la gaaro ma aragtay adiga 4 saac 5 saac markii ii tahay ayaan jeclahay jikada inaan galo oo qadadii iyo cashadii aan hal mar ka soo tuuro galabkii ilaa fiidkii oo dhan aanan ka walwalin jikada iyo maxaa karinaysaa markaad waa u jeedin labada dhinacba wax yar uu iga gaduutay waan soo saaray banaanka ayaan sii dhigayaa hadda marka sooska ayaa sii bilaabay isla birtaawadi ayaan isticmaalayaa saa u jeedin mashiinka yar ayaan isticmaalayay basasha fiina ayuu ka dhigayaa ilmaha kala basasha ma jeclo markay waaweyn too kala ama markay ka dareemayaan sidaas darteed mashiinkaas yar maasha Allah inaba caadi ma ahan aad iyo aad ayuu fiino uga dhigaa ma dareemayaan marka basasha ayaan rabaa wax yar inaan soo gaduudiyo iyo toon basasha iyo toonta ayaan soo gaduudinayaa waxaan rabaa hadhow ii sheeg in laga dareemin sooska aan karin doono marka insha Allah inta la gaarin duhurka waxaan rabaa qado iyo casho dhameystiran insha Allah inaan ka soo tuuro idinkana aan idin la wadaago in ay tahay wax fudud aysan adkeen subaxii maadaama alisay la soo kaco hilibkii ama digaagii ama malaygii waxa maalintaas aan karinayo ayaan banaanka soo dhigaa sometimes waxa banaanka soo dhigaa habeenka ayaan soo dhigaa inta aanan sii seexanin si subaxii uu diyaar u yahay oo barafkii uu ka dhacay oo hore aan dibka aan u saaro marka intaasna waa iga talo labada boon sameeyaa aniga hadda waa u jeedin biyo yar ayaan ku soo shubay aad iyo aad ayay u jilcaday maxaa la dhahaa basashii iyo toontii caanahaas yar ayaan ku darayaa caanahaas waad arkayseen waa kariimka cuntada ayaa loogu talagalay ayaan sooska insha Allah ka sameyn doonaa wixii xawaajiyaal adiga aad jeceshahay ayaad ku darsan kartaa aniga waxaan ku darayaa yaanyadaas waa yaanyo la soo qalajiyay oo gasacmanka ku jiro oo aragteen u maleynaa dukaamanka ayaa lagu gadaa macaan iyo dhadhanaan ayay leedahay yaanyadaas yar aan soo jarjaray ayaan ku darsaday waxaan kaloo ku soo dari doonaa xawaaji kaari iyo waxaan kaloo ku dari doonaa xawaajigan oo gaduudka waxaa loogu talagalay digaag iyo hilib markaad karinaysid ayaa loogu talagalay dhadhan ayuu u yeelayaa marka dabka ayaa
insha Allah inaan u gaabiyo. Dabkan u gaabinayaa kadib digaagii ayaan ku ridayaa wax yar waan isla huurinayaa qadadii waaba diyaar inaba caadi maahan saad arkayseen waqti badan maysan qaadanin canjeerada inta iisii qamiirayso waxaan sameeyey qadadii ayaaba soo dhammaystiray maasha Allah bariiskana waaba sii kariyey oo digsi ayaa jiro bariiskan ku karsado bariiska digsigaas ayuu kusii huurayaa qadada marka waaba tanaa sidan ayay diyaar noogu tahay digaaga ayaa marka dib ugu celinayaa si uu ii sheeg dhexda biseel kale hadduu u hare oo si fiican ugu sii bislaado sooskana maasha Allah dhexda ay iska galaan hadhowna insha Allah waan idin tusin doonaa anoo saxanka soo saaray siday ku soo baxday marka wax yar waan daboolayaa waan ka baxnay xaggii cashada ayaan rabaa insha Allah in aan u wareego marka maadaama canjeeradii aan sii qastay intaanan qadadii aan bilaabin saacadan waxaa waaye way ii soo qamirtay waa gabgabo waana soo diyaarsaday haddana waa kana canjeeradii ayaan waxaan ku bilaabay inaan dubo marka canjeerada iyo waxaan rabaa inaan sameeyo chicken yaroo waxaan rabaa inaan ka sameeyo suqaar yar camal inaan u jarjaro ayaan rabaa oo waxaan rabaa casho ahaan inaan ka dhigo marka canjeeradii waa tanaa boorashka madow iyo burka cad iyo xabad ukun iyo khamiir iyo cusbo iyo sokor ayay ka kooban tahay canjeerada markaan soo dubo waxaan sameyn doonaa markaa chicken suqaarka yaraa aan ugu talagalay cashada ayaan isla markiiba sii shiilaa kadib waxaa waaye cunto maasha Allah laga taxadiray nafaqaysan oo ii sheeg kulul ayaa dareerka u karinaysaa waqti badanna aanan kaa qaadanin intaasna wax kale ma ahan waxaa lagu gaaray waxaa waaye qorsho inaad hore usii balaan garaysid beri maxaa dareerkaad u karinaysaa iyo inaad hal mar jikada maaragta hal saac bar aysan kaa qaadanin oo halkaas saaci barka aad isdhibto afarta dab maaragta aad shidid oo ii sheeg hal mar jikada aad ka baxdid si adigana aad u nasatid ilaa nafley ayaa nahanay ama noloshaadii kale aad usii wadatid markaan jadwalkan maasha Allah muddan waa soo waday hooyo waxbarto jaamacad dhigatan waan ahay alxamdulillah way ii shaqaysay aad iyo aadna waan uga helay qaybta ugu dambeyso hadda cashada ayaan iska sii boobsiinina digaag waaye waqti badan ma qaadanayso digaaga marka waxaan sameeyay fiina ayaan u soo jaray xawaajiyadii iyo wixii waa la sii dhigay marka aan la sii dhigo waxaan dareemaa maasha Allah chickenka yacni dhadhan fiican in uu yeelanayo sidaas darteeda markaan dabka aan saaray waxaa waaye xawaajiyadiisii wax dhan way u dhameystiran tahay waxa kaliya u baahan yahay waxaa waaye wax yar in uu soo huuro kadibna barbarooni basashaada qaleel ayaan jeclahay in aan ku cuno oo biyo iyo wax dhan maasha Allah uma taabsiinayo yacni waa sida oodkaciyo kala marka duwaaba kana cashadii iyadana sidaan ayay diyaar ku tahay dabka ayaan u gaabinayaa ama dabka dhan waaba u daminayaa maba gaabinayo waa daminayaa maadaama ay diyaar ay tahay hadda iyo waxaa waaye marka nadaafadii ayaan galeynaa oo jikadii oo nadiif ah inaan hal mar aan ka baxno ayaa rabnaa insha Allah alaabtii aan isticmaalnay weelashii aan wax ku karinay waxaasoo dhan ayaan insha Allah jikada iska soo nadiifinaynaa hadda marka waa kana saacad waa ujeedeen 12 weli ma la gaarin 5 daqiiqo ayaa ka haray qadadii iyo cashadeediina alxamdulillah waa diyaar ii sheeg jikadii ayaan ka soo baxay hadda insha Allah waxaan rabaa hal mar in aan nadiifis kali ayaa ii dhiman wixii lagu cunteeyay wixii aan isticmaalay iyo meelihii aan haleeyay in aan gacanta aan wada mariyo oo ii sheeg aan iska hagaajiyo alaabta ayaan ku hormarayaa alaabtan soo dhaqay alaabta markaa soo dhaqo shoolada miisaska ayaan ku xijinayaa kadib maasha Allah intii duhurkii la gaarin waxaa waaye jikadan waa nadiif jikadii sidan ayaan uga baxay alaabihii waan iska raacsiyay shooladii waa ujeedaan kaala iska arag maqaayadii sidan aan ku xiray insha Allah maqaayadadan waxay dib u furmaysaa beri باذن الله الكريم marka waa kana jikadii waa nadiifiyay cunto iyo qado iyo casho waa ii diyaar wax kale aan ka fikiraayo ama aan ka murgaayo ma lahan waxaan rajeynayaa insha Allah asxaabay inaad ka hesheen muuqaalkayga ama routinkayga oo jikada iyo habkan cuntada aan iskaga fududeeyo si aysan waqti badan aysan iiga qaadanin haddii aad tahay hooyo shaqaynayso haddaad tahay hooyo guriga joogto haddaad tahay hooyo wax baranayso intaba yacni maasha Allah way ku anfacaysaa waxaan rajeynayaa inaad tijaabisaan oo aad isbartaan inaad jikada hal mar gashaan hal marna aad ka wada baxdaan marka waa kana alxamdu shukru haddana waan soo dhameeyay qada ayaan u fadhiisanaynaa qadada waa tan sidaan ku soo baxday digaagii iyo bariiskii cad aan ugu talagalay ilaahay hana wada barakeeyo intaan haysanin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha siiyo until next time assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh